Welcome. Street food or Geisa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبي يا سود هذا مركلة يموقال عصب waxaan joognaa magaalada Hargeysa halkan inaad xasuutaan mooyaane waa meel aan muuqaal hore uga sameynay waa suuqa weyn ee Waahen ee magaalada Hargeysa saaxiibayaal maanta waxaan sameyn doonaa muuqaal kale oo xiiso badan waa street food cuntooyinka wadooyinka Hargeysa ayaan tijaabin doonaa soo dhawaada meel kasta oo joogtaan fadlan haddii tahay markii ku guureysa kanaalkan soo booqatay fadlan subscribe saar share garee like garee meel dheena garsii aad iyo aad wad maasantiin maanta muuqaalkan waxa igu helin doonaa nin hore channelkeena uga soo muuqday way Cabdikariin soo dhaw walaalkii Ridwaan aad iyo aad baan ku salaamay waana dhawahay maanta sidoo walaalka idin sheegay waxaan duubi doonaa muuqaal aad iyo aad u xiiso badan kaasoo aanu ka duubi doono suuqa Hargeysa caasimadda Jamhuuriyadda saaxiibayaal imika waxaan fadhinaa mid ka mid ah makhaayadaha magaalada Hargeysa halkaas oo aan markii ugu horeysay aan tijaabino cuntadeedii marka ninkan maanta aan sameynaa barnaamijkana waa Cabdikariin leedah Cabdikariin maxaad leedahay maanta ka hor maanta nala socdaan idin leenahay aad iyo aad maanta shaaba lacabaya ma garanaysa iyo cuntooyin kale oo fara badan tijaabin baa lagu jiraa gowdhaha marka loo joogo qurux badan baa la qaadanaya idin sheegnay waxaan soo gaadhnay imika meelihii lagu iibinayay cuntooyinka yaryar fudud ee fast foodka ah inaan kamaanu ka iibsanaynaa aanu walaal imise weeye intaas 12 uu inoo sheegay inaan 12 buu yiraahday waan diran lacagtan siin doonaa insha Allah saasoo iga wada saan filayaa saaxiibayaal wali waxay noo socdaa barnaamijkan street foodka barnaamijkan anagoo bartan kaga jirnaa ayaa gabalku noo dhacay oo salaadan looga adimay marka masaajidkan galnay ee muuqaalka qaybta dambe ayaan sii wada doonaa insha Allah waxaanan tijaabin doonaa cuntooyinka wadooyinka ee magaalada Hargeysa saaxiibayaal wali waxaan ku sii guda jirnaa muuqaalkeenii aynu galabta isla oogin waxaan soo gaadhnay makana halkan yare qudaarlaha muus waa mise walaalo muuska 2000 muus baa insha Allah na siin doonta walaalo halkana muus baan ka cuni doonaa wali tijaabinta ku guda jirnaa noo soo qowlaa muus walaal laba xabo noo soo kana labada xabaan muusaan ku yar tuurayna horta muuskiban yara cunaya bismillaah runtii waa muus aad iyo aad u macaan muuskan xaw ka soo qaado walaal muuska waxa laga keenay Ethiopia in xamar baa laga keenay laakiin marka xamarta la dhaafay imka Yurub la geeyay moogtahay marka muuska cunaysa waa Ethiopianka صح إثيوبيا قارة هانت الحقيقة كسر قاعد كرت إثيوبيا إثيوبيا دوين كل شيء كرنا مكان هذه كي حمرنا وكل حد يا مساء ولم كم حق وين لا فين مكان يوروبا لقيه مكان كي حمرنا يوروبا لقيه يوروبا لقيه مكان رافيا منك صح 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 هذا مساء هي قرتين مصاب محل هذا محل نقص هذا وبلاش بلاش وين النقطة بلاش نقول يا سما وين أنت شايفيننا وين سيرو قري
ليه مركز كمان وين لبي لحدا ما هاي صدق لحدا اه يمكن waxaad noqotay 3 اسكو احنا لعقت ذي صاحبي waxaan tijaabin doonaa xabxabka waxaan soo gaarnay iminka meel xabka lagu iibiyo xabkan imsaad iibinaysa 3 kun oo tir weey ya waxaan tijaabin doonaa xabxabkan marka labo kala qaybi saaxiibayaal xabxabkan oo inta badan wadooyinka Hargeysa lagu iibiyo kana soo kacay inta badan maxay ahayd dhulka Itoobiya aba qaybo ka mid ah Soomaaliland ayaan tijaabin doonaa insha Allah dhadhankiis aad iyo aad buu macaan top way wali waxaan ku guda jirnaa barnaamijkeena street foodka makhaayadana oo ah makhaayadii maanta aan ka bilownay barnaamijkeena ayaan kusoo gabagabeyn doonaa oo aan ka hadli doono casho markaa amba cuntada loo yaqaano fadiirada